kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan Ramadaan Kariim ku soo dhawaada shabakada calanka Soomaaliya oo aad xilli walba uga barateen xogaha qarsoon iyo waliba wararka degdega ah ee dalka warbixinteena caawa waxaan ku eegi doonaa wadaniyadii Farmaajo oo ku soo dhamaatay in uu qoyskiisa iyo qabiilkiisa ka shaqaaleysiyo madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya sida ay calanka Soomaaliya hore idinku soo tabisay waxaa maalintii shalay ahayd la magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada magacaabista la magacaabay Nuur Diiriye Fuursade ma ahan mid ku timid degdeg balse waxa ay ka mid tahay talaabooyin oo in muddo ah uu qaaday madaxweyne Farmaajo taas oo ilaahi dhaqaalaha dalka iyo hoggaanka madaxtooyadaba uu gacanta uga geliyay dad ay ehel yihiin Farmaajo in muddo shacabka Soomaaliyeed u sheegay in uu yahay wadani ka fog musuqmaasuq iyo qabyaaladaysiga ayaa waxa maalinta ka dambaysa soo baxay dareenkiisa runta ah shacabka Soomaaliyeed oo ah dad aad u dulqaad badan ayaa waxa ka sii dhamaanaya dulqaadkii ay u hayeen Farmaajo iyagoo arkaya halka uu ku wada dalka iyo hoggaan xumadiisa taas oo uu haddana ku darsaday qabiileysi iyo beeleysi haddaba haddii aynu eegno dadka ay Farmaajo ehelka yihiin ee uu xilalkii ugu sareeyay madaxtooyada uu ku taxay waxa ka mid ah Nuur Diiriye Fuursade madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka xishoon waayay in uu jago u magacaabo nin ay xidid yihiin Nuur Diiriye Fuursade waxa uu qabaa oo caruur u dhashay Xuriye Aadan Yuusuf oo habaryar u ah xaaska madaxweyne Farmaajo Zeynab Cabdi Macalin Xuriye Aadan Yuusuf ayaa waxa ay soo korsatay marwada madaxweynaha Zeynab Cabdi Macalin Farmaajo ayaa waxa uu Zeynab ka soo guursaday guriga ninka agaasimaha uu hadda u magacaabay ee Nuur Diiriye Fuursade lambar 2 Maxamed Cusmaan Balal la taliyaha gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo Maxamed Cusmaan Balal waa ninka Farmaajo u haya lacagaha iyo dhaqaalaha Balal waxa ay ilma adeer yihiin Farmaajo ma ahan qof aqoon ku yimid balse waxa uu u keensaday in uu sirtu u hayo isla markaana dhaqaalaha u aruuriyo 3 Umar Faaruq Cabdi Macalin waxa uu la dhashay marwada madaxweynaha Zeynab Cabdi Macalin waxa uu mushaarka ka qaataa madaxtooyada isaga oo lagu sheegay in uu yahay la taliyaha sare ee madaxweynaha 4 Xasan Cabdullaahi Farmaajo waxa uu la dhashay Farmaajo waxa uuna ka mid yahay dadka ku dhow madaxweynaha waxa uu mushaarka ka qaataa madaxtooyada iyo hay'adda nabad sugidda ee NISA lambar 5 Xuseen Gandiish oo ku magac dheer Xuseen Dheere waxa ay ilma adeer yihiin xaaska madaxweyne Farmaajo Marwe Zeynab Cabdi Macalin waxa laga soo kaxeeyay dalka Mareykanka waxa lagu qaatay jago lagu sheegay in ay tahay la taliyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee xagga dhaqaalaha Axmed Faarax waxa ay ehel yihiin Farmaajo waxaana lagu sheegaa in uu ka mid yahay milkiilayaasha dawladda waxaana dhawaan lagu wareejiyay qandaraaska shirkadaha Shiinaha ee kalluumaysiga badda Soomaaliya number 7 Nasro Wehliye waxa ay tahay la taliyaha xaaska madaxweyne Farmaajo ee arrimaha haweenka iyo qabiilka Nasro waxa ay hore ugu soo fashilantay hoggaanka shirkadda Nestlé wixii warar intaas ku soo kordha ama xogo qarsoon ah waxa si toos ah ugula socon doontaa channelkeena calanka Soomaaliya ha ilaawin subscribe haddii aad muuqaalka ka heshana like sidoo kale wixii fariin ama dhaliil aad inoo haysan ugu reeb qaybta hoose commentiga la wadaag asxaabtaada waadna ku maasan tahay daawashada muuqaalka tan iyo kulanteen xigta waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo